kusoo dhawaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af-Ingiriiska. Halgamayaasha Afghanistan, iibsiga guryaha iyo tartan kubadda cagta. Asalaamu calaykum. Maanta waa maalin Jimcaha, bisha Sebtembarna ay tahay 1. Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamuud Xasan. Wararkii oo faahfaahsan. Halgamayaasha Afghanistan 2 sano ka hor ayaa ciidamada Maraykanku ay dhammaystireen kala soo bixitaanka ciidamadooda oo dhan waddanka Afghanistan, waxaana Taliban ay si degdeg ah dib ugula wareegtay dhammaanba waddankaas. dhowr ka mid ah haddaba askarta Afghanistan ee ku nool gobolkan Maine ayaa waxay u tahay sanad guuro murugo leh, iyadoo xasuusinaysa yididiiladii iyo hadafkii ay ka lahaayeen inay gaadhaan waddankooda oo horumara oo nabadgelyo ah. haddaba Cumar Zai oo ah diyaaradaha qumaatiga u duula nin u kicinaya ama u duulinayay militariga Afghanistan ayaa isagu waxa uu sheegay inuu ku dhibaataysan yahay waddanka Maraykanka inuu fahmo jihada iyo halka uu u socdo isaga oo isla markaana qaxooti ku ah. haddaba Mudane Zai waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in uu helo liisanka duuliyanimo ee Maraykanka, laakiin una ogeyn sida uu kharashkaas u bixin doono. tan iyo dhammaadkii dagaalka ee Afghanistan, haddaba ku dhowaad 300 oo qof oo ka soo jeeda waddanka Afghanistan ayaa waxaa la soo dejiyey gobolka Maine. iibsiga guryuhu wuxuu kordhay gobolkan Maine bishii Luulyo, laakiin guryaha suuqa yaalla oo iyagu aad u xadidan ayaa weli saameyn ku leh suuqa. sida haddaba laga soo xigtay ururka dilaalinta ee Maine, iibka guryaha ee bisha Luulyo waxa uu kor u kacay ilaa 7% marka loo eego bishii Juun. laakiin guud ahaanba iibka guryaha marka la barbar dhigo sanad ka hor waxa uu hoos u dhacay 20%, maadaama iibsadayaashu ay la kulmeen dulsaarka ama heerka dulsaarka oo isagu kor aad ugu kacay. qiimaha guryaha ayaa weli sii kordhaya, iyadoo celceliska qiimaha iibka guryuhu uu gaadhay 380,000 bishii Luulyo. taasi waxa ay ka dhigan tahay koror 7% marka loo eego bishii Luulyo ee sanadkii hore 2022. tartan kubadda cagta. 10 ciyaartoy ah ayaa iyagu dhowaan waxa ay ka qayb qaateen tartan kubadda cagta ah oo ka dhacay magaalada Portland, taas oo looga dan lahaa in lagu muujiyo hibada iyo tayada ay leeyihiin ciyaartoyga kubadda cagta ee soo galootiga ahi. munaasabadan oo socotay muddo 2 maalmood ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Albert Rwabira oo tababaro waa kooxda kubadda cagta ee Burundi ka soo jeeda ee gobolkan Maine. Rwabira waxa uu sheegay in dhowr qof oo soo indhaindheeya kooxaha kubadda cagta ah ee xirfadlayaashaana ka socda ay ka soo qayb galeen tartankan, taasina ay ka mid ahayd mid ka mid a yoolalkii uu ka lahaa tartankan isaga. Rwabira waxa uu sheegay in ay tani ka caawin doonto ciyaartoyga inay kor sii qaadaan xirfadooda iyo horumarinta kubadda cagta. Rwabira waxa uu sheegay in tartankani uu ahaa mid lagu guulaystay, una rajaynayo in sanadaha soo socda uu iyadana sii wado inuu qabanqaabiyo kubadda cagta. halkaad nagala socoteeni waa Maine Public News Connect. warkiina intaas ayuu ku dhan yahay. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. iyo sarag dambe. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Ku iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhaweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dadka